أهلا وسهلا kuna soo dhawaada xarunta waxbarashada ee Cumar Teacher Education Center. waxaynu maanta cashirkeena ku soo qaadanaynaa sida loo duubo CD. sida loo duubo CD waa fududahay haddii aad isu geysato data aad adigu leedahay oo ka kooban cod oo aad rabto inaad ku dhageysato gaarigaaga baabuurka. badanaa dadku waxay u isticmaalaan tagaasida iyo markay magaalada aadayaan inay hal CD ku tuurtaan oo wixii ay duubteen oo cod ahaa ay ku dhageystaan. marka si aad CD u duubato oo dhageysiya oo loogu dhageysan karo gawaarida, marka hore kombiyuutarkaaga shido oo daatadii dhageysigeed maqalkeed isku aadi. mathalan daatada hadda waxay ku jirtaa hal folderkan waxaa ku qoran magaciisa qur'aan. folderkan oo kale waxaa igu duuban qur'aan. waxaan rabaa inaan ku duubo CD. marka hore waa inaan isaga furo oo aan double click ku dhaho ama open, right click open waa isku mid, ama double click oo laba mar inaan taabto. folderkii markaan furo daatada ku jirta gudihiisa waa cod dhammaanteed wax la dhageysto. marka highlight baan ku sameynayaa, waa calaamaynayaa, ama control A oo la mid ah highlightka dhammaantood hal mar inaan xushto, control iyo A oo keyboardka aan ka taabanayo. markay meeshaas marayso right click mid ka mida wixii aan highlight gareeyay ayaan right click ku dhahayaa, ama dhanka bidix ee mouse-ka. waxaa halkan ku cad optionno ama ikhtiyaari fara badan oo ay ka mid tahay add to ban list, ku dar liiska duubista waxyaabaha la duubayo. intaadan kan taaban ka hor waa inaad CD cusub oo faaruqa aad gashatid. CD duubaha oo kombiyuutarkaaga haddaad laptop haysatid badanaa way duubayaan CD-yaasha. CD cusub oo faaruqa gelinaysaa, kadib add to ban list ayaa taabanaysaa. add to ban list oo sidaasay u qoran tahay. marka halkan click baad sameynaysaa, waa taabanaysaa. waxaa soo baxaya Windows Media Player. waxaa kuu soo baxay Windows Media Player. dhankan waxaa ku qoran drag items. marka uu soo galay automatically maadaama aad taabatay add to ban list, halkan ay ka muuqanayaan dhammaan wixii codka ahaa, halkan ay ka muuqanayaan. marka waxaa xigta inaad taabatid buttonka la yiraahdo ban oo kor ku aadan ban files to CD. markaanu niraahdo ban waa duub. markaan taabto waxay soo furmaysaa page kale oo ay ku xisan yihiin dhammaan faylashii. had iyo jeeraa wuxuu duubaa media playerku wuxuu duubaa ugu yaraan 13 ilaa iyo 12 ilaa iyo 14 siday u kala cabir weyn yihiin. markaas maqalka adig ku duubmaayo iyo daqiiqadaha ay ku xiran tahay. waxaa halkan aan ku haystaa 12 shay oo cod ah. marka 12kaa shay markaan geliyo CD faaruqa wuu ii duubmayaa. total timekii waxoo dhan wuu ii sheegay. marka haddan wuxuu i weydiinayaa halkan insert a blank CD into the drive. geli CD faaruqa drive-ka kan wax duuba geli. hadhowna wuxuu ka dhigayaa CD drive audio CD. marka audio CD. intaa kadib waxaa ii haray inaan taabto keliya buttonka burn aad taabanaysaa, kadib duubistii halkaa ka bilaabanaysa. wuxuu hadda i weydiinaya inaan CD faaruqa geliyo, sababtaa CD ma aan gelin aniga. wuxuu ku leeyahay insert a blank CDR or blank CDRW in the CD drive and then try again. marka adigu waxaa lagaga baahan yahay keliya CD faaruqa inaa halkaa gelisid, kadibna retry adhadeed. amaba kuma weydiinaya marba haddii ahaad horey CD cusub u gelisay. horey wuxuu ka bilaabayaa duubis. matalan waxaa halkan ku arkaysaa inspecting statuska, waxuu soo qoraya inspecting, kadib converting buu ku sameynaya, kadibna burning process uu dhahayaa.
bacda dalik wuu ka soo baxay c d wuu soo tuuraya isagoo dhammaaday halkan baa ku arkaysaa wuu dhammaaday wabilaahi towfiiq intaas waxaa ku eg duubista c d-ga haddaba barnaamijyadeenna waxaad kala socotaan website-keenna oo ah www omarteacher.com oo aad ka booqan kartid bogga internetka waa www omarteacher.com oo aad ka heli karta casharo fara badan oo ay ka mid tahay sida loo tirtiro bogga casharo fara badan oo halkaas ku arki doonto oo waxbarasho ah dhammaantoodna ay ka faa'iidaysan kartid insha allah haddii ay yiraahdo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah